trade forecast loo isticmaalo hadda doonaysid trader fiican noqotid oo marka lagu leeyahay demo October maniga ma aha maxay mobilka inta soo qaadid mid kor iska socota buy iska dhig mid hoos iska socotana sell saas waxa kuma baraysan waa ku nasiibi badan bay ku haynaysaa marna profit badan baad ku haynaysaa marka waa kuna laakiin marka doonaysid inaad wax baratid ee lagu leeyahay war demo maxay hayday demoda isticmaal oo demoda ku tababar marka lagu leeyahay macnaheedu waxa weeyaan adigu qaybta computerka ka isticmaal oo trade-yada computerka ka gal oo hadii aadan trade forecast isticmaaleyn waa inaad trading view-ga isticmaashid oo trading view-ga asagana ka isticmaali kartaa laakiin mar walbana waxa ka fiican tan waa brokerkaagi waa kugu xidhan oo trade forecast kala dadka soo gashid broker badan baa ku xidhan trade forecast waa kan iminka brokerkan isticmaalno waxa la dhahaa oo maahe badan baa jira qiimadooyin way kala wada qiimadooyin marka wad ku khalkhalsaday iyadoo dhinaca marsa ka kala dhacan ku marsa waa fiican tahay oo dadkan isticmaasho way fiican tahay maxay day structure kas dhinaca bas oo wada dhaqaajinaya laakiin aniga fikrad ahaan waxa ka fiican adiga trade forecast-kaaga ku analyze gareysta oo trade forecast-kaaga ay ugu diyaarsanaato kan kale trading view-gu wuxuu ku fiican yahay trade forecast-kaagan settingskaagu san uu ku yahay computer-ka ma ka geli kartaa oo account-ka mail ka geli kartaa laakiin settingskii kuma soo raacayo kin trading view-gu iyo faa'iido hadii aad computer-ka ka tagtid oo magaalo kale ba tagtid maxay hayday datadeedii iyo analyze gareysatay adib u kartid marka tanina wax muhiimadeedu waxa weeyaan wal inaad wixii qiimihii wuxuu maraya meeshii saxda ahayd wadalka halkaagaas kaaga bilaabaya meel sax ayaad maraysaa marka muhiimad badan bay leedahay waa inaad badan ka ogaato wax badan waa inaad ka ogaataa shaashada ma soo qaado iyo orders hortamaan group ka dhex taala hadii kalena waad kala soo degi kartaa internet trade forecast ku qoraysa internet kala soo degi kartaa xiisa bilaaban doona trade forecast marka koobaad soo gasho macnay u eegtay madowgaas iyo ka daran nooca daran ay u eegtay hadan soo dhaweeyno lafteeda hadaynu soo dhaweyno maaha macala candlestick maaha waa wax isticmaalsa candlestick isticmaalsa bar charts ka isticmaalsa candlestick ma isticmaalso dad ku trade garay way jiraan laakiin fiican candlesticks-ka waxa arkaysaa inay qaab daran yihiin mid kale midabyo badan oo cadaan badan oo dhinaca dambe naga xiga haddaba seebeen waxaan oo dhan aanu edit kareyna step baynu mari doonaa marka ila socdo insha Allah oo bilaabaya horta marka waxay noo taagantahay bar chart ku kaas ay noogu taagantahay marka koobaad san uga dhigana candlesticks-keeni aynu isticmaal jirnay inagu waa inaynu kan soo ka ku bedelanaa waa inaynu ku bedelanaa mid baan ilowsanahay horta waxa ka horeysa waxa soo dhan intaadan ku soo xidhan seebadu soo galaysa waxan seebad account-kaaga ugu xidhanaysa account-kaagii marka doonaysid ama account deemaad broker ka soo samaysatid ama account-kaaga real-ka doonaysid ku xidhatid waxaad samaynaysaa halka ay ku qoran tahay login to trading account marka kale aniga account-kayga waa igu xidhan halkaas ayaad gelinaysaa account-kaaga wax alaaliye wuxuu yahay numberkiisaad gelinaysaa waxaad ka dooranaysaa serverka uu broker ku iyo tusaalaan ka qaadna isticmaashid egasam ina isticmaashid okay waxa furan sameeyna open an account okay halkan aan ku qoraya hostan ku qoraya add new broken egasam waxa leedahay servers far badan bay leedahay marka serverka ku siiso ayaad raacaysaa ayaad ka galaysaa okay hayno soo saaray egasam serveradeedii
Mm, المهم maaha waxa weeyaan inaan magaca saxnu doonaya marka magaca saxda brokerku ay ku siiyaan marka email bay kugu soo dirayaan brokerka magaca ay ku siiyaan ayaad halka isagoo saxad ku qoraysaa marka uu ku soo qabanaya imika brokeradan kale aynu isticmaalno kalamka IC market oo kale aynu ku xiran halka ayay inoo taagan waa IC market iyo brokeradan kale aan raadiyay mar muhiim waxa weeyaan inaad account-kaagii aad soo gashid oo halka ka soo gashid yan waad ka soo gashid halka weeyaan next haye waxaad tiraahdaa an existing account okay halka waxaad tigta saaraysaa ka ugu sareeya halkaas ka ugu sareeya tigta waxaad saaraysaa ka ugu sareeya ayaa tigta saaraysaa kaasa tigta saaraysaa marka account hore aad lahayd weeyaan marka kaasa saaraysaa kadibna waxaad gelinaysaa information-ki password waxaad lahayd marka maxaad ku garanaysaa inuu ku shaqeynayo oo account-ku ugu xidhan yahay waxaad ku garanaysaa number 1 horta dhinaca koobaad dhinacaas kugu soo brokerkaaga numberkiisi iyo halkan wuxuu kugu soo qorayaa brokerkaaga iyo inuu account live yahay ama account demo inuu yahay halkan hoostana waxaad inuu internetka ku xidhan yahay markuu xidhan yahay halkaas haddii kala zero bay noqonaysaa ama valid account uu inaga oranaya laakiin markuu inoo shaqeynayo markuu caadi noogu shaqeynayo waa kaasoo maxay ahayd numberamba ku qoray marka suuqa xidhan laakiin markuu suuqa shaqeynayo way numberantaas way isbedbedelayaan oo numberis bedbedelayo weeyaan okay haddaba shaashadeena seebanu hagaajisanaa shaashadeena waxaan u hagaajisanaa waxaan sameynaynaa right click ayaan ku dhufanayaa right click markaan ku dhufto waxaan imanayaa halka ay ku qoran properties halka ay ku qoran tahay ayaan imanayaa okay enter baan siiyay marka inta imaado waxaan imanayaa garoonka haddaan aanu cadaan doonay ama ka dhiganaya haddaan madow doonayna madowgiigaasaan ku daysanaya for groundku ka cadaanka soomarkiisa kala halka hoostana inoo sheegay waqtiga weeyaan bal tusaalaan aan ka dhignay guud ka dhignay waxaad arkaysaa halka inooga dhigay casaan oo kale inooga dhigay haddii aynu ka dhigano suuqaad sanad ka dhiganay bar abku hadaba waxa weeye bayda kandalka bayda kalarka aad u yeelinaysid adiga ayaa garanay kandalka bayda kalarka aad u yeelinaysid adiga tusaale waxaad ka dhigtaa waxaad nooga dhigtaa green nooga dhig green nooga dhig kan bar down waa kandalka selka ama beerishka kandalka la yiraahdo weeyaan marka isagana waxaan ka dhiganaynaa casar ka dhiganaa tusaalaan ka soo qaad qofku wuxuu doon ka dhigan karaa halkan waxaa hadana nagu soo noqotay bull candle waxa weeyaan waa kii bayda ahaan isku color baan ka dhiganayaa beer candle-kana waa kii selka ahaa isagana waxaan ka dhiganayaa casar ma ka dhiganaya mobilkaaga laftigiisana isla ayuunba ku qoran saasuunbaad u habaysan kartaa iyaga laftooda okay halkan common baa inoogu qoran commonka waxaan ka dhiganaa halka tactics waan saxanaynaa aski price-kaas halku suuqu maraya aski line okay candlesticks inoogu daa okay okay intaasaan settingska ku buuxbuuxinaa saas ayaan ka dhiganaynaa qof walba kalarka iyo nidaamka iyo noocuu doonayo isaga maxay haydeeya ayaa ku buuxbuuxsan doona marka qof walba kalaraanta iyo waxyaabaha isaga ku buuxbuuxsan doona laakiin nidaamka loogu buuxinaya waa noocaas okay waxaan soo hagaajisanay daliskeeni baan soo hagaajisanay dhinacan iyo muuqaalkeygii baan soo hagaajisanay maxaan u baahanahay waxaan dambe dhinaca dambe naga yaalan naga dhilis karay
waxaan daba dhinaca daba naga yaal naga delete garay okay waxaan right baa mar labaad ku dhufanaya halkan maxay ugu qoran grid imika waxaad arkaysan inuu integrate yahay okay isagaan ka qadaya maxay soo baxay imika chat qurux badan ayaa soo baxay chat qurux badan baa soo baxay lacag walba sanad ugu soo jiidaya lacag walba sanad ugu soo jiidaya lacag walba sanad ugu soo jiidaya chat qurux badan baa samaysmay chat qurux badan ayaa samaysmay okay haddaba midabkan waa garaysanaya waan save garaysanaya aanu iga bixbixin haddii kale mar waxay noqonaysaa in chartkii inay chartkii dynamic soo hagaajino kale inay mar walba ku soo noqoto marka maxaan sameeynaya halkan ay manaya save template baan oranay save template okay magaca laali magaca doonista ayaad u bixisan saado magaca laali magaca doonista ayaad u bixisan saa cusay badhe okay bal imika tusaalahaan imika waxaan nidhi imika chartkii hore chart cusub baynu furanay waxaa inoo soo baxay sideedii hore imika ma hawl labaad baan gelinaa maya iyadii baynu kusoo kicinaynaa maxaynu ku qoranaa cusayb okay simple si isku bedelaysaa simple saas isku bedelaysaa inta malay la fahmin misaan ku soo celiya barooni soo qor one soo qor hadii la fahmay hadii aan la fahmina two asxaabta waxaa samayn doonta insha Allah videoga waa inoo duubmaya marka mar iyo lababa waad ku celin doontaan insha Allah waa simple mar iyo lababa waad ku celin doontaan bal si degdeg haddaan u dulmaro waxaan idhi chatku markuu cusub yahay ee MetaTrader 4kaaga aad soo download garaysatid computerka ku shubatid noocan oo kale ayuu ku soo baxaya marka noocanna waa dee aragti ahaan uma fiicno oo dee dad jira dad fahmaa wuu jiraan laakiin aragti ahaan uma yar fiicno waa dee noocaas isku dhex daadsan weeyaan marka inagu candlesticks baan badan ku trade garayna ama aynu action button price actionka iyo waxyaabahaas aynu kala soconay suuq isku dhaqaaqay isku bedelayo marka candlesticks baan inagu la naqaanaa haddaba sticks-kaygii iyo waxaan maxay de muuqaaladan iyo candlekii selka iyo candlekii buy-ga iyo candlekii bearish-ka candlekii bullish-ka candlekii bearish-ka candlekii bullish-ka saynu u kala garno inuu kala soocno maxay hayde waxaynu u baahannahay inaynu hagaajisano muraayadeenan ayaynu u baahannahay haddaba maxaynu samaynaynaa waxaan right click ayaan ku dhufanaya right click markaan ku dhufto waxay soo bixi doona optionskan badan ayaa soo bixi doona properties halkaan ku qoran tahay ayaan ku dhufanaya amaba F8 meesha F8 baad taaban kartaa computerkaaga keyboardkiisa properties ma ku dhuftay properties markay soo baxdo backgroundkaas waa midabka dambe marka haddaan ka dhigno noocaas midabkii dambe saas isku bedeli doonaa mar dhow marka backgroundku waa midabka dambe sagu tusaale markii hore waxaan ka dhignay midabkan ka dhignay kana cadaan ka dhigno saa ka dhig backgroundku waa midabka dambe weeyaan foregroundkuna waxa weeye waa midabka nagana soo eegay markaynu cadaan ka dhignay fartuna cadaan bay ahayd marka qiimihii ma muuqanayo qiimihii halkaas oo kale imika tan kama muuqdo marka maxaan sameeynaa kana waa inaad midab isaga ka dhex muuqanayo kala aad u sameeysid midab ka dhigay marka toos waa loo arkaya laba candle baa samaysmaya oo candle bearish iyo candle bullish weeyaan candleka bullishka waa ka kor u soconaya bayda candleka bearishkana waa ka hoos soo soconaya selka haddaba labadoodaas qof walba candleku doono ka dhigan karaa laakiin badanka waxaan naqaanaa inay yihiin yacsan haddaba candlekeeni bayda ahaa maxaan samaynaynaa waxaan ka dhigaynaa bluegii baan ka dhiganaa waana bar upkay ku qoran tahay waa candlekii bayda ahaa maxaan ka dhigtay green baan ka dhigtay okay bar down kay ku qoran tahay waa candlekeygii ahaa selka ama bearishka ahaa maxaan ka dhigtay isagana casaan baan ka dhigtay okay casaan baan ka dhigtay
marka waa hareerahoogii gudihii maaha gudahoogu kandarka buulishka ama bulka gudihiisu waa madow marka waxaan ka dhiganayaa akhtarkii baan ka dhiganayaa okay imika muxuu ii wada noqday kandalkayga muxuu ii wada noqday kandal wada akhtara ayuu noqday soo marksan okay kan biirishka hoos soo soconaya selkana maxaa sagana ka dhiganayaa casaan muxuu ii samaysay isaguna kandal cas ayay samaysmay qaybtan common kana waxaan soo halka charge shift-ka oo inaad maxay dib u riixan kartid balkii iyo on background okay ASCII line kana itus baan leenahay okay candlesticks halkan candlesticks iga dhig bar soo saarna candlesticks iga dhig okay waan siinaa maxay inoo soo baxay muuqaalkii baan hagaajisanay iyo waxaan hagaajisanay kala candleskiina hagaajisanay okay layman kan dambe shan maxay haday laymankan midmadoowe liidadkan dambana asaynu iskaga saarnay iyagana waxaan sameynaa halkan aan ku dhufanaa maxay haday right click baan ku dhufanaa grid halka ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanaynaa maxay noo soo baxay imika meel shaashad qurux badan ayaa inoo samaysmatay dibadana ka gudaan kan damina albaabka caadiga ya akal albaabka caadiga ma digtay marno halkeen ka baxaya hada Friday iga raalnadan yar asxaabta marka wanaga shaashadeena imka qurux badnaysiisano oo wata saasay nagu qurux badnaatay marka saad candle-ka saadan waxaan jeedaa saad template kana samaysatay iyo nidaamkan aad samaysatay saadan mar walba ugu soo noqnoqonin oo mar walba aad furtid chart cusub furtid sidii hore aad soo baxaysa marka saadan ugu noqnoqono dib hadaba aad u soo cusboonaysin oo aan mar walba aan teenan samaysanin maxay hayday aynu dib u soo kacsano waxa sameeyna waa save garan save halka ay ku qoran save template ayaan ku dhufanayaa save template kaasan ku dhufanayaa magac baan u bixisanayaa okay dfa buu bixi okay dfa baan inoo iraada marka imika hadii new chart aan idhaahdo maxay soo baxay sideedii hore tii aan samaystaa dabadan doonayna inaan ka dhigto maxaan sameynayaa dfa baan ku dhufanayaa maxay automatic maxay u noqotay automatic waxay igu noqotay kii aan samaystay oo muuqaalkii fooshaxmay wixii baa iga ba'ay okay hadaba waxa jirta indicators fara badan baa jira imika kale chartkayga noo arkaysaa indicators baa ku jira badankan oo aragtay kuwan sagoo Dr. Spiller isticmaalaya halada currency strength ama awoodda ay lacagtu leedahay waxaanu isticmaali jirnay markii hore currency heat wave ko kale laakiin iyadoo mid trade lagu shubtaana way jirtaa marka indicators weeyaan waxani connect waa support iyo resistance inka muxuu igu leeyahay kaas waa daily resistance ma sabnaanu laakiin automatic buu igu sawirmay maxaanad arkaysaa halkan inuu suuqa in badan laga celceliyo daily resistance-ka in badan laga celceliyo oo ixtiraamo suuqu arkaysaa marka waa arkaysaa uu xajiyay okay marka uu xajiyay marar badan baa laga celiyay marka maxay haday waa resistance la ixtiraamiyay muddo la ixtiraamiyay oo suuqu ka noqonayo weeyaan waa resistance suuqu ka noqonayo ixtiraamiyay weeyaan marka adu automatic fikrad buu ka siinaya oo maxay haday sunteeno gabagabo sateeni aan xidhmay insha Allah iska furanto ay dhowdahay xiisadii kalena laakiin waxaan doonayaa si yaro dhaqso ah saa loogu soo darsanay indicatorada inaan hal iyo laba bay diga tuso insha Allah hadaba waxaan isticmaalnaa teeni hore sameysan cadaankii ugu soo noqo teenana ku soo dardarsanay indicators soo dhigi doona groupken library-ga ee DFA maxay Telegram-ka aan soo dhigi doona indicatoradaas oo dhan laakiin saa loo sameeynaya in ogaan waxaan imanaya horta file meesha ay ku qoran tahay ayaan imanaya file meesha ku qoran tahay waxaad arkaysaa meel ay ku qoran tahay open data folder
open data folder waxa weyn meesha uu ku kaydsado MetaTrader 4 keenan meesha uu xogta ku kaydsado ama indicator ha noqoto ama waxay doontaa noqotay oo meesha uu xogta ku kaydsado okay maxaan imanaya MQL kaas ayaan ku soo dhufanaya MQL ka markaan ku soo dhufto indicators halka ay ku qoran tahay indicators kan ku soo dhufanaya halkan ayaan ku soo darsanaya wax allaali wixii aan indicator u baahdaba indicator wax allaali waxaan u baahdaba halkan ayaan ku soo daray automatic mar dhowna waxay igu soo darsamayaan iyaguna MetaTrader 4 kayga oo si simple ayaan ugu darsan karaa aan tusaaleeyahay isagoo ku furan hadda doontid ayaad maxay tahay halkan kalena ka soo jiidan kartaa kan kale imka halka waxa arkaysan indicators waxa igu jira imka kale tusaalaan ku tusaalayna auto support and resistance okay automatic inoogu dhigay supportka iyo resistance-ka marka waxa sameynaya copy baan oranaya isaga ayaan copy ayaan oranaya copy markaan imaado halkan folderkii kale uu inoo furan isagu iyo indicatorska baalki MetaTrader 4 folderkii kale MetaTrader 4 indicator kan dhex imanaya waxaan sameynaya aan ku dhex paste baan siinaya ugu jiraa buu leeyahay okay saas ugu soo shubmaya mar allaali markuu soo ugu soo shubmo adigu waxaad ku soo noqonaysaa MetaTrader 4 kaagi MetaTrader 4 ka waad iska xiraysaa MetaTrader 4 ka waad xiraysaa si u qaadato change kan cusub ee yimid waad xiraysaa oo ku soo noqonaynaa ayna soo arkado okay what way noo soo kacday haddaba waynu ku soo darsanay imika indicatorkeena waynu ku soo darsanay waxaynu sameynaynaa waxaan imanayaa halka ay ku qoran tahay xidigta yar iyo folderka kala dambeeya ay ku yaalaan ayaan imanaya halkan waxa igu soo baxaya indicatorada ku jira oo dhan kii aynu inoo ku soo darsanay muxuu ahaa auto support and resistance warso halka laga markayo wakaas waxaad sameynaysaa intaad qabatid mid ku soo jiidaysaa halka ay ku qoran tahay all DLL import aad tigta saaraysaa okay baad siinaysaa automatic igu sameeyay resistance-kii 4 hour-ka resistance-kii daily-ga wixii oo dhan ilaa time frame markaan tago kuwa waka 15 minutes support 30 minutes support wixii oo dhan waa ka sameeyay wixii oo dhan waa ka sameeyay soo ixtiraamay soo ixtiraamay marka maxay haday waa time kaasaynu ugu soo darnay indicator kaasaynu ugu soo darnay ayuunbaad ugu soo daraysaa dhammaan wax allaali wixii aad indicator u baahatid ee aad doonaysid ku darsatid MetaTrader 4 kaaga wax allaali wixii indicatorad u baahatid inaad ku darsatid MetaTrader 4 kaaga noocaas oo kale ayaad ugu darsanaysaa insha Allah bahalada indicatorada oo dhan waxaan soo dhigi doonaa maxay haday groupkan soo dhigi doonaa xisto ay noo duubmaysaa qofkii aan fahmin insha Allah ku celin doona mar iyo lababa intii minkaay uu doonay una fahmin waqtiga inagu yar oo xiisad kale ina sugaysa si fiican baan marka lagu sharxi doonaa marka asxaabta wax su'aal la qaba ma jirtaa waxaan la fahmin ma jirtaa qaybta chat-ka inagu soo qora midda kalena waxa samaysaa markaad indicatorada waxaan ku soo darsatidna waa inaad save gareysatid si aadan mar walba indicatorkii inaad ugu soo darsataa inaan noqon halkeenii hore aad ku save gareysaa save template daddoonsi inaad muraayad cadaan aad maxay leeyahay muraayad cadaan exit ay noqoto oo taadi hore ku taalana tan magac cusub oo kala bixisan doonta DFA with support and resistance bas qoran kartaa wada doontid marka marna waxa ku soo baxaysa imka hadaynu cadaankii kaliya ka dhigno DFA kaliya tan ka dhigno waxa noo soo baxaysa cadaan
haddaan ka dhigno DFA with support and resistance waxaan usoo baxaysaa in indicator kusoo darsanay marka asxaabta wax su'aalo la qabaa ma jirtaa waa ka bixi doonaa oo waxayna sugaysaa xiisadii kale waxaan u malaynaynay jirin wax su'aalo la qabaa okay صاحب waxaad ku oranaysaa best waxaad ku oranaysaa maxay hayday halkan waxaan ka soo furanay Metric 4 keena qayb files buu leeyahay fileka waxa jirta meel ay ku qoran tahay open data folder markaad ku dhex dhufatid waxa open data folder waxa weeyaan waa halkii ku kaydsanayay Metric 4 keena xogtiisa iyo wixiisa halkii ku kaydsanayay weeyaan markaad open data folder markaad timaadid maxay hayday markaad timaadid open data folder aad ku dhufatid wuxuuna keenayaa open data folder raado okay halkan saaxiib folderkan ugu furaya marka waxaad ka sii dooranaysaa MQL ayaad ka sii dooranaysaa MQL ka markaad dooratid indicators meel ay ku qoran tahay ayaa jirta halkaas saaxiib folderka intaad furtid ayaad wixii aad sidii halka ku dhex paste garanaysaa saaxiib marka asxaabta maxay waxaan maleynayaa wax su'aalo la qabaa jirin insha Allah iska soo gabagabaysan doonaa waad salaamintiin dhamaantiin khayr baan idin rajeynayaa